waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa mas-uuliyiinta degmada ee sida diiran noogu soo dhoweeyey magaaladan oo runtii ah magaalo taariikh badan oo dhow leh oo ka duwan meelo badan oo degaanka Puntland ah. waxaan runtii safarkaygii ugu horreysay aan ku imid aad uga mashquuday sida dadkeedu isugu tashaday, sida horumarka degdega ah oo muddada kooban ay u gaareen, sida tacliinta iyo caafimaadka iyo biyaha iyo weliba ganacsiga isbeddelka uga dhacay iyo dhismayaasha magaaladaba. runtii waxay muujinaysaa dad karti leh, isku xiran meel kasta ay joogaan. waxaan marar badan degaano badan ka sheegnay habka horumarkay u gaartay Bursaalax oo u baahnaa in ku dayasho dad badan ay ka qaataan. waxaadna ogtihiin degmooyin badan baa waddooyinkaas aad furteen iyagana waddadaa raacay, maxaa yeelay horumarkee wuxuu ku xiran yahay annagu nugu xiran yahay, meel kale ka imaan mayo. waxaan rabaa xaqiiqdii muddadaas ay dhismaysay marba mar bay soo maraysay, gacanta dawladda mar walba wixii suuragal ah oo ku aadan ayay qabanaysay. dabcan baahiyahu ma dhammaadaan. degaanada Puntland waa degaano aad u ballaaran, waa degaano runtii meelo muhiim ah ku yaalla, mid walba wax gaara ku suntan. degaanada hadda galbeedka magaalada Gaalkacyo ku yaalla ee degmada Galdogob iyo degmada Bursaalax waxaad ogtihiin waxay ku yaallaan meel ahmiyad u leh ee Puntland oo ah meel u dhow xuduudda dalka aan jaarka nahay ee Itoobiya, oo dad badan oo dadkeenna ah oo dadka degaanadan u badan ay deggan yihiin. waa fursad ay leedahay degaanada tani, maxaa yeelay ummadaha meel wada deggan markay xalliyaan mashaakilaadkooda kale, waxa u weyn oo dalalka ka dhexeeya waa iswadaarsiga ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha inay ka midoobaan. waa meeshii xudunta u ahayd isku gooshka badeecadaha kala duwan ee ama Itoobiya ka imaanaya ama Puntland ka tegaya oo xagga gelaya. runtii waxaan is leeyahay ahmiyaddaas ay leedahay waa ahmiyadda fursadda ganacsi siisay, waana ahmiyaddii markii hore lagu degay. marka la fiiriyo juqraafiga ay ku taallo iyo dhulka carrasanka ay ku taallo xoolaha ku wanaagsan, dadka iyo dunyadaba u roon, runtii waxay muujinaysaa inay tahay degaan habboon oo la rabo in si wanaagsan loo maalgeliyo. waxaan is leeyahay guddoomiyaha hadalladiisii iyo baahiyihiisii uu ka hadlay waxaa dheer oo uun halka ka sheegay, anna raba inaan inii sheego horumarkaas xawliga ah waxaa ku dhacay hakan, waxaa ka muuqda dibudhac. waxa sababay kolle waynu garanaynaayo annagaa isku sababannay. guddoomiyaha waa iska leexiyo wuxuu yidhi waa il iyo waxbaa nagu dhacay waana la cayuuma. laakiin arrintu intaa waa ka weyn tahay, maxaa yeelay isha waa isaga falantihiin, culimmadiina waa inii joogtaan qur-aan baa ka akrisanaysaan. laakiin wiilashaan kibray oo runtii dadka nolosha u diidan dadku inuu iska qabtaa la rabaa. waad ogtihiin magaaladan waxay ku dhisantay waa qurbo joog, maalgelinta u badan iyagaa sameeyey. haddii dadkii qurbaha ka imaanayey ay naftooda u baqaan oo aano iyo waxaan macno lahayn, muxuu qaban karaa qofku? sidiisaba qofka kaa dheer waxa uu qaban kara waa yar tahay. laakiin qofka markuu fursad u helo inuu soo booqdo oo arko oo baahida indhihiisa ku arko, waad ogtihiin wax badan buu ka beddelayaa. runtii waad ogtihiin waxaa ku yaalla iskuulaad iyo mashaariic ay dadka qurbaha joogaa wax ka qabteen, kuwo ay isugu tageen iyo kuwo shakhsiyaad qabteen. waad garan kartaan isbeddelka ay magaalada ku riday. meeshaan aan hadda joogno
oo runtii heli karay inuu meel kasta ka samaysto dhaqaalaha uu hayo ku maalgeliyo wuxuu la dhex jeclaystay degaankii iyo dadkiisa ay ka yimaadeen haddii dadkii u degi lahaa aad ka xanibtaan oo dalkii la soo booqan waayo oo qoysaska raba inay nastaan ama kuwa lamaanaha aqal gala aysan intay ka soo fogaadaan meelaha kale halka dalxiis u soo aadaan la kari waayo oo kuwa Itoobiya jira ay halka soo aadaan waad garan kartaan maalgelintaas wax ay la kulmi karto runtii waxaan annaga halka ugu nimid maanta oo aan u aqbalnay runtii martiqaadkii degaamada nooga yimid waxa ugu muhiimsan inaan reer Bursaaxalax niraahno war isdaba qabta hadday il inugu dhacdan ilaahay baa inaga baryaynaa insha allah inaga qaado hagaagsada bal wixii wadda fiican kuma socon dilka joojiya colaadda dhexdiinnana baajiya inaad dad karti leh oo dowladda muhiim u ah oo runtii dhiig leh oo dalka difaaciisa qaybta ugu weyn ka qaata waynu ognahay waana iniga mahad celinaynaa runtii saraakiisha ugu wanaagsan ee Puntland leedahay deegaanadaani ka soo jeedaan mas'uuliyiinta ugu kartida badan deegaanadaani ka soo jeedaan laakiin waxaa ku noqonaysa cuqdad inuu intuu meel kale wax ka qabto deegaankiisa wax ka qaban waayo waa dhibaato kaleeto arrintaas waxaa la rabaa in laga fiirsado hadde awal hoos baa wax la isugu sheegi jiray laakiin Bursaaxalax marka inaan dusha wax ugu sheegno way waayo xadkii baa dhaafteen marka waxaan rabaa arrintaas lababa waa isku daraynaa idinkuna dib u xisaabtama annaga haddaan dowlad nahay kuwa dharka madow iyo kuwa kaloo idan garanayna waan iisoo diraynaa haddii lahaydna waxaan rabnaa iyadana amniga in shaqo laga qabto dadka dembiyada intay galaan deegaanka ka cararaya ogaada dhibkii aad geysateen ma dhammaanayo intaa maqan tihiin waxaa la rabaa dhib waa dhacayaa hadday dhib dhacdo oo qofku xataa khalad ka dhaco intuu carari lahaa waxaa la qaatay inuu dadkiisa isu dhiibo oo yidhahdo war hallay taliyo waxa weeye dee haddii uu qooqaa yahayna sida ilaahay faray in ummadda laga qabto u baahan yahay haddii waxaasi caro iyo khalad iyo waxaan habboonayn u dhacana dee xaajadu waa furan tahay laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa wakhti aan fogayn guddoomiyaha codsigiisa insha allahu tacaalaa waxaa furmi doona maxkamaddii laamaha amnigana waa la hagaajinayaa waxaa la rabaa qofkii dembi geysta inaan la qarin oo la dhuumin oo si degdega wax looga qabto oo cadaaladda la hor keeno dadaalka odayaasha keliya kuma filna waa in hay-adaha amnigana la xoojiyaa oo iskaashaday ayaa horta wax qaban kara intaas waxaa ka muhiimsan odayaasha laamaha amniga dowladda waxaa ka muhiimsan shacab weynaha iyo gabdhaha oo la rabo inay ku khasbaan mas'uuliyiinta kala duwan inay si wanaagsan ugu shaqeeyaan waxaan isleeyahay gabdho karti badan baa jooga dhallinyaro fiican baa halka joogta waan garan karnaa duruufaha marmarka qaarkood ku xeeran waxaynu u baahannahay dal dadkiisaa u kaca dadkiisa hagaagsada dadkiisaa dhibka ka qaada waad ogtihiin Puntland isku dayo badan baa soo aaday meelo badan baa laga damaaciyey daacish baa isku dayday al-shabaab baa isku dayay quruumo kaleeto dana kale isku dayey cidda u babac dhigaysa oo mar walba soo afjaraysa waa dadkeeda runtii markay isku duuban yihiin hoggaanka dhaqanka hoggaanka siyaasadeed iyo guud ahaan ciidankuba degaankaas loo baqi maayo haddii ilaahay idin ka dhigo waxaan rajaynayaa dowladdiinna sidaa ugu kalsoonaateen sidaad uga rajaynaysaan inay ini difaacdo sidaa uga rajaynaysaan inay horumarkiinna ka shaqayso dimuqraadiyaddiinna ka shaqayso dowladnimada ka shaqaysa ayaa dhabnaga ah waxa aan degaanada saacadaha u maraynaa u guuraynaynaa meel walba u tegaynaa waxaan rabnaa dareenka dadkeenna inaan ogaanno wax la qaybsanno waxaan aad ugu faraxsanahay runtii degaanadii kala duwanaa ee maanta aan marayey oo maanta gelinka horen aan galdogob joogay caawana aan joogo Bursaaxalax waxyaabaha aan rajaynayno waxa weeye in horumarka aan gaarnay inaan ku fara adeegno Puntland inta wiilashaas
geesiyaasha ay joogaan inta dowladnimadiinna iyo hay-adihii dowladda iyo baarlamaankiinna iyo xukuumaddiinna joogto ha u baqinina marar badan aan lahayn waa inugu filannahay ha baqina kuwa been moodaaya laakiin maanta casharray hayaan baan u malaynayaa kii isku daya inay dadkan waxay ku heshiiyeen ka hor yimaada wadar iyo waaxid yaa waalan baa la yidhi waaxidkaa waalan ummaddaa waxay ku heshiisaa shaqaynaya haddii ilaahay dowladnimadeedaa shaqaynaysa farriintaas cid walba oo damacsan rabidda iyo jiritaanka puntland inay wiiqdo ayay ku socotaa meel kasta ha joogto dadka reer puntland waa dad feejigan waa dad soo jeeda waa dad aan la siri karin waa dad aan la bajin karin waa dad aan la khiyaamayn karin waa dad soo jeeda wax qaybsi iyo walaalnimo diyaara u nahay cagajuglayn iyo digdig ninna ka yeeli mayno ilaah idankiis marka waxaan rabnaa soomaali wixii ka dhexeeyana inaan ka hadalno ka xisaabtanno diyaar baan u nahay gudaheenna wixii ahna waddo kastoo habboon baan ku eegaynaa hadday siyaasad tahay hadday nabadoonnimo tahay iyo hadday tahay mid ciidanba hadba talada ku habboon ayaa hoggaanka dowladdu isagoo ka tashanaya dadkiisana la tashanaya haddii ilaahayd ma qaadi doonaa waxaan u baahannahay dowladda aan dariska nahay ee ethoobiya gaar ahaan ismaamulka soomaalida ee na soo xiga waxaan muddadii u dambaysay ka shaqaynaynay sidii wada shaqaynteennu ay u xoogaysan lahayd isu socodka gaadiidkii dadku u hagaagi lahaayeen ganacsigeennu isu dhaafi lahaa danaha amni iyo kuwa horumarneedna aan uga wada shaqayn lahayn arrintaas idinka waxaa ka tihiin safiirro khaasa maxaa yeelay degaankii baa u dhowdihiin waxaan ilaga rabaa dembiilayaasha halkaa ka yimaada inaynan igu soo dhuuman waxaa la rabaa dadka halkaa waxyeelaynaya inay halkiina gabaad ka dhigan waxaa la rabaa dadka xun ee degaanka xagga jira ee halka deggan iyagu reer ahaanna inaysan laba canlayn oo intuu halka edabdarro ka sameeyo halka ku gamban ama intuu halka edabdarro ka sameeyo xaggaa ku gamban waxaa la rabaa wixii xun laamaha amniga wada shaqayntoodu way ka wada shaqaynayaan mana dhici doonta haddii ilaahay inay arrimahaas dhacaan annaga waxaana laga rabaa inaan mar walba u taagnaanno waxa danteenna ku jirto danteenna waxay ku jirtaa waa inaan amnigeenna ka shaqaynaa waa inaan horumarkeenna ka shaqaynaa waa inaan dowladnimadeenna hareerta ka istaagnaa madaxda maanta ma aha madaxdii shalay mana aha madaxda berrito shalay madax bay puntland lahayd maanta madax baa joogta birrina madax baa imaan doonta madaxda timaadda haddaysan u imaan wax la soo dhisay iyo maamul dowladeed hadda maalin walba lagama bilaabi karo meel sagxada waxaa puntland meelaha kale uga duwan tahay waxa weeye maamul gaamuray oo 28 jiray oo maalinba heer soo maraayey maantana aan rajaynayno inuu noqdo maalin ka mid ah maalmaha ay tallaabsanayso hore u socoto waxaad ogtihiin puntland maalmo badan oo la soo dhaafay maanta way ka fiican tahay waxayna rajaynaysaa maalmo badan oo soo socda inay ka sii fiicnaato maantase waa maalintii ugu muhiimsanayd oo isku xiraysay shalay iyo berri shalay waynu garanaynaa duruufo adag baynu ku abuurannay qax iyo dagaallo sokeeya iyadoo dhacay baana halka laysugu yimid duruufo dhaqaalo adag baa jiray maamul amaamudaa jiray dad dabaalaysan baa jiray waxaa maamulka puntland tusaale loo soo qaadan karaa waa degmada bursaalax dadkeedii hijrooday oo tegey baa intay soo noqdeen dhallinyaradii baadiyaha ka soo ururiyo halka iskuulla uga furay oo waxbaray oo maanta quruxda aad aragtaan leh oo hanka aad laga leeyahay aad dareemaysaa isku tashigaas dadka reer puntland wakhtiga badangeliyeen oo 30 sano u dambaysa ka shaqaynayeen maanta waxay rabaan inay uga gudbaan dowlad kala wareegta mas'uuliyaadkaas oo iyada isku filan oo canshuuraha si fiican u qaada oo dowladda la xisaabtami kara ah oo waxa ka soo baxa ay dadka ku celiso hadday jidad tahay hadday biyo tahay hadday amni tahay la wareegta tacliinta la wareegta caafimaadka meesha loo socdo horta waa halkaas meesha wax kala wareejinaysa waa maanta haddaan dowladnimada dhidbada u aasno oo hay-adaha dowladda iyo kala dambaynta adkayno oo dadku ay noqdaan dad
la xukumo iyo dad wax xukuma iyo sharci ay wax ku xukumaan oo aan yarayno inuu nin walba siduu rabo yeelo waxaynu gaaraynaa qorshe ay suuragal tahay dowladdu inay awoodda dadkeeda oo dhan iyadu la wareegto qurba joogteenna iyo dadkeenna hantida haystana aan wax kale u dirsanno oo ah kobaca dhaqaalaha meeshii ay tabarruc ay samayn lahaayeen waxaan uga baahnaan doonnaa marka dambe inay maalgashi sameeyaan oo shaqo abuur sameeyaan laakiin haddaan maalin walba ku hayno abaar baana haysee biyo noo dhaamiya ama maaragtay ilmaha jiran ee caafimaadka wax naglaga qabto ama iskuulkiibaa dayacanee ha la dayac tiro ama biyaan u baahannahay waa aasaaskii hore soo maaha horumarka la gaari kara intee la ekaanaya markaas wuu koobnaanaya waxaan u baahannahay dadkeenna miyiga iyo kuwa magaalada joogaba inay helaan nolol la isku hadlayn karaan oo ugu horraysa amniga oo ay dowladda siiso ku tiirsanaanta qabiilka inay yaraato waxyaabaha hadda keenaya qabyaaladda waxa weeye dee qofkii ma haysta magan kale iyo meel uu ku gambado laakiin hadda qabiilku wuxuu isku beddelay dembiilayaasha ku gambada arrintaas waxay u baahan tahay in dib looga fiirsado waxaad ku maahmaahi jirteen odayaasha mid qaba maxay oran jirteen mid qaldan qabashadiis iyo muxuu ahaa iyo mid quman quweyntiis soo maaha waxaa ku koobateen hadda mid khaldan qarintiisa keliya yaa arrintaa in wax laga beddelay u baahan tahay waxaa la rabaa dadka quman ee dadka iyo dalka u shaqaynaya in gacan la siiyo waxaa la rabaa in lala shaqeeyo saraakiisha waxaa la rabaa in lala shaqeeyo guddoomiyaasha degmada waxaa la rabaa in lala shaqeeyo macallimiinta waxaa la rabaa in lala shaqeeyo dadka samaha ka shaqaynaya waxaa kaloo la rabaa in odayaasha lala shaqeeyo hadda dhibaatada odayaashu haysata waxaa ka xoog batay rag kaleeto oo runtii gabbaad u ah dadkaas marka waxaa la rabaa odayaasheennana inaan gacan siinno nabadda ka shaqeeya islaaxa dowladnimada inaan gacan siinno labadaasba isku hareer wadno ilaahay idankiis dowladda puntland sida wanaagsan aad ula shaqaysaan iyo sida aad kaalinta ugu leedihiin waxay iyaduna ku abaalgudi doontaa inay gacan ka geysato waxyaabaha qabyada ka ah horumarka degmadan dadkii qurbaha waa daaleen sida aad sheegaysaan ama duruufihii baaba ka daba yimid waa ogtihiin oo adduunkii waa soo adkaaday maadaama adduunku soo adkaaday waxaa la rabaa dowladdu inay la wareegto howlahaas dowladda si ay ula wareegto waxay u baahan tahay in waddada loo xaadho oo hay-adaha dowladda la dhiso waynu garanaynaa halka waxaan ka samaynay dimuqraadiyad golo degaanoo la doortay baan garanaynaa golihii degaan ee la doortay oo aan dimuqraadiyadda uga guuri lahayn waynu garanaynaa in maayarka la dhiso waxay naga qaadatay waxaa kaloo hadda aan rabnaa ciidamadii booliiska ee tababarnaa hadda la keenay waad garanaysaan waxa hor taagan haddana waxaa leedihin kuwo kale ha la keeno hadda carrigoo dhan hadduu ciidan isku bedelo naftirkiisa shiddada dhalanaysa waa ogtihiin waxa meesha yaallana wax yar weeye waa dhowr qof oo in hebel loo garanayo waryaa meel fariisa in la yidhahdo ku habboon tahay isdilka aan macnaha lahayn waxaynu rabnaa inaan ka korno dadku hadduu isqabto maxkamadaha oo saldhig u yahay kitaabka ilaahay shareecadana waa ku kala bixi kara xeerka dhaqankeennana hadduu xallin kara waa ku kala bixi karna wixii intaa dheer maxaa imaanaya waa isdil soo maaha isdilku yuu dan u yahay ninna danu maaha waa inay noqotaa meel xataa dowladdu nasasho u soo aado haddaan hoteelkaan aragnay annagaa marmar intaan halkan nimaan isaga shireen ayaa wasiiradoo dhan imaanaya marka waa uga mahad celinayaa cali investmentigan uu meesha geliyey waana rajaynayaa insha allah inay dowladdu gacan ka siin doonto in ay shirarka muhiimka ah lagu qabto meelaha kan maxaa yeelay shirarka qaybtood waxay u baahan yihiin meel deggan in lagu shigo marka kolley anigu maanta markaan imid nasasho iyo deganaanshaan ka dareemay gobolladan xuduudda saaran sirna waa inii sheegayaaye labadan degmo hadda dowladdu iyadaa u baahan dowladdu si ay dhaqaalaheeda u kobciso oo wax soo saarkeeda u kobciso waxay rabtaa inay hagaajiso xiriirka ganacsiga etoobiya la leedahay siyaasadda dowladdu waa sidaas
maadaama halkaan aan u soo soconno oo dadkii o dhan halka geedi u soo yahay fursad dadka aysan haysan baa haysataa dadku idinku ina fiirsanayaa dowrka aad leedihiin ha gabina iswaansada ha iskala saarsaarinina magaaladan waa og tihiin waa magaalo la wada degan yahay soo saas maaha waa magaalo la rabo inta inala degan maahan inta kalena inay soo degto maxaa yeele meel istaraatiiji ku taalla soo saas maaha albaabada dadka u fura inta yaree xun ee maaragtay iyaga ruuxaddooda hallaysan toosiya aad baad u mahadsan tihiin insha allah kulamo gaaraan geli doonnaa waana intaasaan ku soo koobaya